ninkani waa alharbin. waxa uu dhashay 1862. waxa uu yahay ama uu haystaa taytalka ama rikoodhka ninka aan weligii seexan. cajiib. dadku ninkani way la yaabeen. waxa uu sheegtay inuusan weligii seexan. haddaba waxaa jira dad qaba cudur la yidhaahdo insomnia. cudurkani waxa uu sababaa in qofku ay hurda kusoo dhici weydo. inta badan cudurkani waxa uu ku dhacaa dadka stresska qaba, gaar ahaana wadamada reer galbeedka ee ka tegay diintii, qalbigooduna qalalay, isla markaasina stress fara badan uu haysto. balse qofka marka uu ku dhaco insomnia waxa uu noolaan karaa muddo xadidan. ma jiro qof intaas oo dhan noolaaday. ninkan alharbin la yiraahdo wuxuu noolaa 94 sano. dad fara badan ayaa ninkan la yaabay. ugu dambeyntiina Faransiisku waxa uu bilaabay inuu ninkan dabagalo. habeen kasta waxaa lala joogsiin jiray amaba la joogi jiray 3 nin. 3 nin waxa ay daawan jireen ninkan inuu seexdo. habeen walba 3 nin oo gaar ah ayaa la joogi jiray. muddo bil ayaa sidii lagu waday. ugu dambeyntii waxaa la ogaaday inuusan ninkani 2 indhood isu keenin. cajiib. arrintan waxay ka mid tahay mucjisooyinka Ilaahay. qof walba Ilaahay waxa ku imtixaamaa mucjiso ama dhibaato, gaar ahaan dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka furtay ee noqday kuwo Ilaahay la shariig yeelay isla markaasina caabuday wuxuusan alle ahayn. saaxiib, si aad u heshid muuqaalo noocan ah, halkan subscribe saar.